inkastoo intiina badan aan isticmaalno cadarka ama waxyaabaha kale ee daryeelka maqaarka, 2 dumar ah oo Vietnamese ah ayaa lagu sheegay in jirkoodu bixiyo udgoon dabiici ah. Dan oo ka soo jeeda gobolka Soc Train ee Vietnam ayaa lagu sheegay inay leedahay awood aad u xiiso badan marka la xoqo maqaarkeeda. Wuxuu soo saaraa udgoonka ubaxa ee lagu tilmaami karo cadar dabiici ah. Dan ayaa la sheegay inay ogaatay muuqaalka gaarka ah ee jirkeeda dhowr sano ka hor, iyada oo xoqanaysa gacmaha iyo cagaha. Waxay si lama filaan ah hawada uga orisay urtan, waxayna aakhirkii garatay in jirkeeda ka soo baxayo. Maalintii haddii aad rabto inaad uriso udgoonka, waa inaad gacmahaaga marisaa, laakiin habeenkii dadka hareerahayga ku sugan weli way urin karaan uduga ka soo baxaya jirkayga, xitaa haddii aan fadhiyo mitir meel iyaga ka fog. Mrs. Dan ayaa u sheegtay YouTube-ka Douglas Bean. Dan ayaa ku andacoonaysa in meelaha qaar ee jirkeeda ka mid ah ay ka udgoon badan yihiin kuwa kale, isla markaana ay udgoonka habeenkii ka xoog badan tahay maalintii. Inta lagu guda jiro maalinta, xoojinta urta ayaa hoos u dhacda ilaa 10%, laakiin waa tan ugu xooga badan marka ay tahay habeen. Sheekada aan caadiga ahayn ee Mrs. Dan ayaa dareen badan ka heshay baraha bulshada, iyadoo muuqaalkii asalka ahaa ee YouTube-ka uu helay in ka badan 1.7 milyan oo daawasho. Dadka ayaa la yaabay awoodda sare ee gaarka ah ee haweeneyda. Kaliya waxaa soo baxday in aysan ahayn mid gaar ah. Kadib guushii muuqaalkeedii ugu horeeyay kanaalka Douglas Bean, waxaa la xiriiray haweeney kale oo sheegtay inay haysato cadar dabiici ah oo iyada u gaar ah. Mrs. Dun oo ah haweeney ka soo jeeda gobolka Kian ayaa sheegtay in si la mid ah Dan uu jirkeedu soo saaro udgoon xoogan marka la xoqo. In badan ayay garanaysay sifadeeda gaarka ah, waayo markastoo ay gacmaheeda maqaarkeeda ku xoqdo waxay dareemaysay udgoon xoogan, balse weligeed cidna uma sheegin.